بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maanta oo ay taariikhdu tahay 3 bishii 7 2022 aniga Maxamed Axmed Xasan waxaan halkan ka soo jeedinayaa fariin wacyigelineed oo ku wajahan dhalinyarada Soomaaliyeed xushmada iyo ixtiraamka iyo burhaanta iyo bogaadinta iyo qiimaha iyo qadarinta iyo wanaagga iyo walaaltinimada aan la soo koobi karin naga mudan dalka gudihiisa iyo daafaha caalamka naga daawan doono walaalayaal إلهي تبارك wa tacaala wuxuu aayad qur'aana ku yidhi alam najcalil arda kifaata axyaa'an wa amwaata reer nebi aadanow miyaanan dhulkii idinka dhigin mid waasica oo ballaadhan oo idinku filan axyaa'an wa amwaata nolol iyo geeri labadaba hadday nolol noqoto oo ay noqoto dhulkii inaad deegaamaysaan oo aad magaalaysaan guryo iyo ganacsi ka samaysataan masaajidiya maraakiis iyo iskuuliya jaamacada ka dhisataan eeriboodiya wadooyin iyo dekadiya ceelal ka samaystaan iyo cusbitaallo oo aad dhulkii ku intifaacdaan hadday noqoto dadkiinnii reer guuraaga ahaa ee xoolo dhaqatada ahaa meelay geel iyo adhig iyo gammaanka iyo lo'da xoolahooda nool daaqsadaan oo ay ku intifaacaan oo baadkiiyo biyaha ay uga raadsadaan iyo cawskiiyo carshinta hadday noqoto dhulkii inaad intifaacsataan idinka laftirkiinnu oo aad wax kala soo baxdaan oo cinibka iyo cambaha iyo qaraha iyo saytuunka iyo tufaax iyo liinta iyo bur iyo bariis iyo sonkor iyo sabiib iyo ashyaadaad intifaacsan lahaydeen dharkaad xidhan lahaydeen iyo dhuunigaad cuni lahaydeen labadaba inaad dhulkii kala soo baxdaan hadday noqoto gaasta iyo baatroolka iyo biyaha iyo macdanta iyo dahabka iyo dheemanta iyo shidaalka iyo yuraamyonka iyo jawharta ceedhiin ee dhulka ku jirta inaad kala soo baxdaan oo aad ka faa'iidaysataan dhulkii in ilaahay lagu caabudo oo amni iyo nolol lagu abuuro lagu noolaado baa ilaahay adduunka ugu talagalay markii sidaa dhulkii loo wanaajiyey eebbaweyna wuxuu yidhi walaa tufsidu fil ardi bacda islaaxiha reer nebi aadanow dhulkii sidaasaannu u wanaajinnay oo u qurxinnaye waroy dhulka ha fidnaynina oo dhulka ha fasaadinnina dil iyo dhac iyo boob iyo biliilqo iyo jawr iyo dulmi kufsi iyo xansuuq iyo musuqmaasuq iyo jahli iyo budhcadbadeednimo iyo qax iyo qaxoonti iyo fakhri iyo jahli iyo cabsi iyo colaad adduunka in lagu camiro ilaahay uguma talagelin qaabkaynu hadda ugu noolahay qaabkii adduunka laynoo keenay loogu talagalay dhulka inaynu ugu noolaanno waxbaad mooddaa inuu ka khaldan yahay sidaas laajigeed dhallinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay adduunka ilaahay wuxuu ugu talagalay inaynu amni iyo istiqraar iyo deganaan iyo dawladnimo iyo horumar iyo caafimaad iyo waxbarasho iyo biyo iyo koronto iyo isgaadhsiin iyo wadooyin iyo tiknoolajiyad inaynu adduunka ku camirno iyo warshado ilaahayna ku caabudno oo akhlaaq iyo iimaan iyo deganaan iyo dulqaad ku joogno baa adduunka laynoogu talagalay oo laynoo keenay qaabkaynu hadda ugu noolahay waxaad mooddaa inayna ahayn qaabkii asalka ahayd oo ahayd in loogu noolaado qaab ka duwan oo ah adigoo qombabayoo qallalan oo qori kaasita qaad iyo buuri iyo khamri iyo sigaar iyo shiishad cunaya jaahila inaad adduunka ku noolaatid qoysba qoys ku duulo gobolba gobol ku duulo tuulaba tuulo ku duusho laysdilo oo laysdhaco cabsi lagu noolaado fakhri lagu noolaado qaabkaasi maaha qaabkii saxda ahaa intaasi waa wacyigelintii af Soomaaliga ahayd oo dhalinyarada Soomaaliyeed ku wajahan waxaad ogtihiin dhalinyarada qabiilka u dagaalamaya si gaar ah ula hadlaya reerka isu dilaya reerkiina markaad u dagaalamaysid waxaad ogataa wiilka Soomaaliyeed reerkooda u dagaalamayo markaad dhaawacantid reerkiinu ma ku daaweeyaano dhakhtar ma ku geynayaan carruurtaadii ma ku biilayaan مسؤولية reerkaaga kafaalo qaadayaan adiga cusbitaal ma ku geynayaan maye meeshay xabadu kaaga dhacdo iyo nabarka ku soo gaadha baynaanays kuugu bixinayaan hadday xabadu sanka kaaga dhacdo sanay bay ku bixinayaan isha hadday kaaga dhacdana ilay dhagta hadday ku goosato dhagay gacanta hadday ku jabiso gacamay lugta hadday ku goosato lugay faarax jiis xuseen laangare maxamuud qacle magacyada noocaas lagu bixinayaa mid baa yidhi waxaan ku arkay dagaaladii sokeeye dalka ka dhacayay inay xabadii kaga dhacday halka xudunta kadibna saxaradii kaadii baa iska socoto midhicirada iyo kaadi haysta dhaawac ka gaadhay qabiilkiisii halkay dhakhtar geyn lahaayeen waxay u bixiyeen ereyga la yiraahdo tifqaaye marka waxaan leeyahay wiilka Soomaaliyeed ee dhalinyarada ahaw in adeeriyaan tifqaaye lagu bixin adoo reerkiina u dagaalamaya intaas haddaan ka gudbo waxaan inoo raacinayaa tixdii gabayga ahayd ee dhalinyarada Soomaaliyeed la yiraahdo waxaan leeyahay abwaankii dhammaysihi xaqu dhinaca saaraaye qabiil uma dhinte
horumarkuu dhiirigeliyaaye xaajadii dhanaanaata buu tala ka dhiibtaaye anna maalintay dhacarataan kor u dhawaaqaa dhegihiinna ii fura dhambaal daahay baan waday dadkaygow dhulkii waad cunteen sida dhurwaagii dhoobiya dhir iyo kagama tegin dhagax la qaadaaye dharaar baad ku kala miisateen labada dhoomood sidaynu dabadda uga dhoofayno baad weel ku dhurateen oo ah ka hadhiciyo hoobiyaha kula dhaqaaqdeen misna kuma dhergin ee baahi baad ugu dhammaateen baddayadii rag baa dhuuqaya iyo dhaxalkii duugnaaye macdantii rag baa dhoofsadiiyo dahabkii dhoobnaaye niman baa shidaalkii dhurtay oo dhacay mallaygiiye nimcadii dhulkeenna buu rag kale dhiil ka buuxsaday iyadoo la wada dhowrayo baan lagu dhaliilayne mulatari u dhaartiya ma jiro ciidan dhiiraniye dawladnimo dhammaysihi inay dhalato mooyaane cid inooga soo dhicinaysoo dhaadaysaan jirin maamulladan isdhinac yaacaya ee wada dhawaaqaaya dadkan reerba dhinac loo jaray ee calanka loo dhiibay xuduudaha naloo kala dhigiya dhacanta lay ooday federaalkan laynoo dhisay ee nalagu dhaandhaamay dhumucdiiyo awooddeenni bay kala dhantaaleen waa dhagar shisheeyuhu wato inay dhex keeneen waa dhibaato soo korodhay aan laga dhammaanayn dhallinyarada soomaaliyey dhimay hankeenna iyo dhiidhiya ilmaadeerayaal waad isdhigateen waxa dheeman iyo luul ku jira dhabarka ciiddeenna waxa dhogoryarow geela iyo adhi dhex daaqaaya waxa dhibicda roobkoo da'diya webi dhex boodaaya adduunyada inala dhaafay oo nalaga dheereeyey waxaynu dabad ka soo dhoofsannay baan quud ka dhigannaa oo dhulkayaga wax kama soo baxaan dhuxusha mooyaane dhulkayaga wax kama soo baxaan dhuxusha mooyaane ubadkii dhulkeenna u kacay iyo jiilkii dhalanayay iyagoo qalbigu dhaawacmay oo dhimirku naafoobay dhaxan iyo tahriib bay badwaynugu dhammaadeen liibiya dhexdeediiyo qurbaa dhibi ku haystaa magafaa xeryaha uga dhigtay oo jeel ka dhaansadaye dhallinyarada soomaaliya ay dhimay hankeenniiye dhiidhiya ilmaadeerayaal waad isdhigateen gumaystihii dhulkeenna iyo hantiyey dhaxalka ciiddeennu dhayal iyo cayaar ugama tegin dhaanas loo tumaye daraawiish dhirbaaxdiya waddani dhaarsan baa helaye haddaan loo dhammayn dawladnimo sooma dhiciyeene niman baa u dheelmaday intay dhammas u qaateene gobonnimada waa loo dhintaa loona dhididaaye dhallinyarada soomaaliya ay dhimay hankeenniye dhiidhiya ilmaadeerayaal waad isdhigateen dhallinyarada soomaaliya ay dhimay hankeenniye dhiidhiya ilmaadeerayaal waad isdhigateen dabaqyada qurbaha laga dhistay ee laga dhex taagaayo baabuurtan wada dheehaliya saraha dhaadheeri waa dhaxal rag kale loo tabcay iyo maal lagaa dhacaye dhulkeennay barwaaqoo dhan iyo dheregitaallaa dhulkeennay barwaaqoo dhan iyo dheregitaallaaye dhita kuma habbana caanahan dhiisha loo culine dhigta loolka waxa loogu xidhay yaysan dheellihiine wax ka dhigan dhismaha dawladnimo dhiigin loo shubae dhallinyarada soomaaliya ay dhimay hankeenniiyo dhiidhiya ilmaadeerayaal waad isdhigateen calankan dharaar iyo habeen dhaaxu diriiraayey calankan dhaqaale u baxshiya weliba dhiiggayga calankan u soo dhaawacmay ee dhab ugu naafoobay calankii dhallaan iyo haween dhalaya loo laayey calankii dadkeennu u dhammaa una dhibaatooday calankuu gumaystaha dhukan inooga dhalandhoolay calankan dhaqaale u baxshay iyo weliba dhiiggayga calankii dhallaan iyo haween dhalaya loo laayey calankii dhimbila qiiqa iyo dhammacda loo jiidhay calankan dhufayska u gallee dhacanta loo ootay calankan dharaar iyo habeen dhaaxu diriiraayey calankan u dhalandhoolla ee dhaxanta loo seexday intaynu magac qabiil dhaafsannay baad dhinac u tuurteen ee dhallinyarada soomaaliya ay dhimay hankeenniiyo dhiidhiya ilmaadeerayaal waad isdhigateen assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu